بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتو عن داود يالكوسو دبادة برامج قارة وكوسابسان xafladda furitaanka kala fadhiga afraad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay 22 bisha Maaj munaasabad lagu furayay kala fadhiga afraad ee golaha shacabka. xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gudanaya waajibka dastuuriga ah ee ku saabsan furitaanka kala fadhiga baarlamaanka sida ku cad qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyaddeena. waxaa kaloo ka soo qayb galay kulanka oo isla markaana ku sugnaa guddoonka baarlamaanka sida gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Jalaani Nuur Iikar, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mudane Mahad Cabdalla Cabad, kusumaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta mudane Ridwaan Xirsi Maxamed, wasiiro ka tirsan xukuumadda, gudoomiyaha maxkamadda sare, xildhibaanada golaha shacabka intooda badan. munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay oo isagu ka waramay kala fadhigan afraad furitaankiisa iyo si kooban howlaha horyaala gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kadib ku soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud si uu khudbadiisa dastuuriga ah xildhibaanada golaha shacabka ugu jeediyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. مدن مدحوينه مدن قدوميها محكمة السرع مدن كسمها رئيس وزارها حكومة الفدرال كالصوماليات وزير ذا هي حلبانة هي مواطنين تا قربجوكا دمان وسلامتهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري هوران مدن مدحوينه waxaan jeclahay magaca golaha shacbiga magaca guddoonka in aan ugu tacsiino dhammaan intii geeriyootay muddadii uu xidhnaa kala fadhigan. raxmadii janna Allah siiyo ay ka mid yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM oo ka howlgalay dib u hanashada deegaanada Soomaaliyeed ee gacanta cadawga ku jira. gaar ahaan waxaan magaca golaha shacbiga tacsi ugu jeedinayaa dawladda iyo shacbiga Djibouti oo ciidamo si marata wadanimo ah dhiigooda noogu horay dalkan xoreyntiisa. waxaa kaloo tacsi gaar ah u direynaa dadkii ugu dambeeyay oo hadda geeridooda noogu dambeysay sida fanaankii Maxamed Tubeec iyo Shariif Saalax oo asna ahaa dadka ku soo halgamay xagga tacliinta sare iyo nidaaminta raad weyn ku reebay arrin kanzi aan noo reebay oo qoraallo aad wanaagsan noogu reebay xagga dhaqanka iyo af Soomaali. inta ka soo mudane madaxweyne kala fadhigan afraad waxa howlo ayaa jiray naga baaqday kala fadhigii saddexaad oo ay ka mid yihiin miisaaniyaddii 2014 taasoo aan jeclahay adoo goobjoog aan codsiga golaha aan iyo wargelin aan u jeediyo kusimaha ra'iisul wasaaraha in arrinta miisaaniyadda 2014 inta ayna dhamaanin bisha tan Maarso in la soo gaarsiiyo sababtoo ah kala fadhigii ugu dambeeyay maadaama howlo badan ay jireen 3 bilood kaliya ayaa iyo golahan ogolaaday in ay kharaj gareyn karto xukuumadda. saadaradeed waxaan aad iyo aad u jecelnahay in sida ugu dhaqsaha badan la keeno in si looga howlgalo guddiga maaliyadda uga howlgalo iyo miisaaniyadda iyo xildhibaanada in la ansixiyo miisaaniyaddaasi muddadan ka harsan bishan dhexdeeda in loo howlgalo lagama maarmaan ay tahay. haddii kale ma dhici doonto bisha 1 Abriil in wax oo kharaj ah la bixin karayo ama xukuumadda bixin karayso ma jirayso taa. saadaradeed codsigaasi ayaan u gudbinayaa in sida ugu dhaqsaha badan loo keeno. waxaa kaloo iyadana magaciisii golaha uu kula ballamay ra'iisul wasaaraha markii la ansixinayo xukuumaddiisa
barnaamijkii koobnaa uu soo hordhigay golaha kasakow waxaanu codsanay in barnaamij xukuumadeed oo tifaftiran oo muddaysan uu noo keeno sida taa oo ayadana loo baahan yahay oo qorshaheeda aanu ku samaynay in uu noqdo 30 bisha maarso inuu horkeeno golaha kan barnaamijka tifaftiran. waxaa kaloo qodobka 62 ee heer hoosaadka uu ina farayaa in sanad walba bilowgeeda oo markii oo kalfadhiga ugu horeeyay sanadka la furayo in guddi walba ay wada fariistaan, guddi walba iyo wasaaradda xil ahaan ugu beegan inay wada fariistaan si ay marata barnaamijka la fulinayo ay isla meel dhigaan oo heshiis ay ugu wada gaaraan. taa iyadana waxaan u baahannahay in mar alla markii uu keeno ra'iisul wasaaraha barnaamijkiisa uu keeno wasiir kastaba wasaaradda guddiga ku beegan inuu isla meel dhigaan ay laga maarmaan tahay. waxaa kaloo u baahannahay in ay marata fadhiyadaasi guddiyada iyo wasiirada ay yeelanayaan inuu ka soo baxo ajenda oo sharci dejineed oo aan ku wada heshiinay oo sanadkan 2014 inta la fulin doono ay isla meel dhigaan si loo howlgalo. howlaha sanadkan la sugaayo waa sanadkii ugu cuslaa oo baarlamaanka laga doonayay inuu fuliyo shuruuc aad u badan aan ku qiyaasayno ilaa aan ka yareen 25 sharci ayaa loo baahan yahay inay gudubto sanadkan 2014 si ay suurtagal u noqoto in madasha ina sugaysa 2016 ay suurtagal u noqoto arrimihii shacbiga aan ka ballan qaadnay inaanu fulino. saa daraadeed mudane madaxweyne adoo goobjoog ah ayaan intaas xukuumadda u gudbinayaa aan rabnaa inaan kala shaqayno adigana aad nagu ilaaliso in arrimahaasi aanu fulino ayaan rabaa inaan halkan ka sheego. aad iyo aad baa golaha shacbiga uu diyaar u yahay inuu si buuxda ula shaqeeyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. aad iyo aad baan xog ogaal ugu nahay xilkasna ugu nahay in marakan loo baahan yahay wada shaqeyn gacan isqabsi isbuuxin ah 2014 ka bilaabatay iyo inta laga hartay inta ka hartay madashan baarlamaanka loo qabtay oo dhammaan doonto 2016. saa daraadeed waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaan inta marata ururada bulshada oo aan wada shaqeyn yeelan doono in aan iska ilowno arrimaha qaarkood iyo waxyaabaha naxadidaya inaan isweydiino hal su'aashaas oo ah xaggee baan rabnaa Soomaaliya inay joogto 2016. waxaynu ku xiran tahay howlgalkeena iyo shaqada aan qaban doono sanadkan. hadal dheer kuma talagelin, waxaan kaliya rabay in adigoo goobjooga ah xukuumadda arrimaha aan ka doonayno oo waaweyn inaan u sheego si aad marata adigana xilkaaga dastuuriga oo kormeerka iyo la socodka aad nagula socoto. intaa ka bacdi waxaan jeclahay in aan halkaa ku joojiyo ereyadayda. hadal jeedinta guddoonka waxa ay noqon doontaa oo tifaftiran ama jihaynta howlaha uu qabanayo golaha kani wuxuu ka dambeyn doonaa kadib markii aanu aragno aan dhageysano badanaa guddoonka hadalkiisa wuxuu jeediyaa markuu dhageysto madaxweynaha, markuu dhageysto prime ministerka, markuu dhageysto afkaarta ay xildhibaanada ku kordhiyaan wixii oo ra'iisul wasaaraha keeno. ka bacdina martaa guddiga joogtada uu isku soo ururiyo arrimahaasi. wixii ka dambeeya ayaa tawjiih guddoonka uu bixi doonaa sidii oo loo shaqayn lahaa 2014. intaa haddaan ku joojiyo mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa inaad waajibkaaga dastuurka gudato oo aad noo furto kalfadhigan afaraad oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayno inuu garab iyo nasriba ilaahay nagu gaarsiiyo ayaan ka codsanayna in ilaahay noo fududeeyo. waad mahadsantihiin mudane madaxweyne, ku soo dhawow furitaanka rasmiga ah. mahadsanid. بسم الله الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كجدال قدوميها آد أيو مهتسن يهي سو دوين تيسا يسير كوبان محانكو إراداي وإلى سعودسيي واجباتك إيو هولها عصب كالفردقان ياله laga rabo xukuumadda iyo wada shaqaynta baarlamaanka aad ayaan arintaas hoosta uga xariiqayaa waana bogaadinayaa xukuumaddu in ay la timaado waxa laga sugayo oo lagu ballansanaa in ay la timaado oo ay ugu horeyso miisaaniyadda iyo barnaamijkeeda shaqo ee qabyada u ahaa. waxaan doonayaa inaan sidoo kale u mahad celiyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya howlihii urxoonaa ee soo qabsoomay kalfadhigii hore ee sida guusha ah ku soo dhamaaday iyo dulqaadka iyo maxaan ku raahdaa ay muujiyeen muddadii kalfadhigaas uu socday iyo xilliyada iyo waqtiyada dheeriga ay ku dareen si ay u qabsanto howlihii markaa taagnaa ee aad muhiimadda weyn u lahaa. sharaf weyn ay ii tahay inaan maanta mar kale idinkala soo qayb galo furitaanka kalfadhigan afaraad oo runtii sida loo wada sheegay ama aan u wada ognahay muhiimadiisa leh. kalfadhigani wuxuu muhiimad gaara u leeyahay xilliga uu kalfadhigani ku soo aaday furitaankiisa ee ah sanadka 2014. sanadkan xukuumadduna way sheegtay kalfadhigii hore intaanan la gabagabayninna waa la sheegay inuu yahay sanadkii waxqabadka, sanadkii maxaanku irahdaay dhidibada loo aasayay wax badan oo ka mid ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo dalkan ka hana qaada. 2014 waxay ku astaysan tahay sanadkii waxqabadka si ay markaa sanadkii waxqabadka u noqoto oo xaddiga maxaan ku yiraahdaa sharci dejinta baarlamaanka shuruucda ama hindisa sharciyeedyada in baarlamaanka ay ka soo baxaan la rabo si hiigsiga 2016 loo gaaray gudoomiyaha hadda sheegayaan garan kartaan cadadkooda intuu la eg yahay iyo sida ay muhiim u tahay. haddii aanan marka sharciyadaasi dowladu waa sharciyad waxqabadka dowladeedna waa inuu ku salaysan yahay sharci. haddii shuruucdii aanay jirin ama aanay u habaysnayn sidii loo baahnaa iyo qaabkii loo baahnaa waan garan karnaa waxqabadkeenu mar walba mid gaabis ah ayuu noqonayaa. aad ayaan markaa waxaan ugu bogaadinayaa baarlamaanka diyaar garaysnaanta oo u diyaar garaysan yahay sanadka 2014 waxqabadkiisa xagga hindisa sharciyeedyada iyo meelmarintooda iyo xagga shuruucda muhiimka u ah dowlad dhisidda Soomaaliya iyo sidii ay u meelmari lahaayeen. xukuumadda federaalka Soomaaliya waa waajib saaran oo laga doonayo in ay ayaduna la timaado dhinaceeda. hawshu waa hawl sidaas ah oo isku wada xiran oo labada dhinacba dhinaca kale haddii uu ka gaabiyo aanu dhinaca kale shaqadiisa aanay soconaynin oo la isku xiran yahay. meeshaasi xigmadda ku jirtahay marka waa mid xigmadda ku jirta waxay tahay wada shaqaynta baarlamaanka iyo xukuumadda. haddii wada shaqayntaas iyo kalsoonidaas iyo isuniyad samaantaas iyo istoosintaas ishagistaas aanay meesha ku jirin way nagu adkaanaysaa howlaha weyn ee baaxadda leh ee ka dowlad ahaan na hor yaalla ee shacabka Soomaaliyeed uu naga sugayo inaan meel marino way nagu adkaanaysaa. mar kale xukuumadda iyo baarlamaankaba waxaan aad ugu bogaadinayaa ilaa iyo hadda wanaaga niyad samaanta wada shaqaynta iyo iskaashiga xoogga leh ee ka soo dhaxeeyay oo runtii ah wax lagu faani karo. haddana waxaan rajaynaynaa sanadkan dadaalkii hore in dadaal kale lagu sii daro oo hawsha la laba jibaaro oo maxaan ku yiraahdaa aad howluhu inay hore u socdaan. Soomaaliya waa dal ka soo kabanaya burbur dowladnimo, burbur siyaasadeed, burbur dhaqaale iyo burbur maxaan ku yiraahdaa bulsho intaba ka soo kabanayo oo dib u soo laabanayo. xilliyadaasi marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay wada shaqayn, iskaashi iyo maxaan isu dulqaad. dhammaanteen waan dadaalaynaa. qof dadaal xumo iyo dalkan inuu hagaago qof mas'uul oo maanta lagu tuubsan yahay ama rabtaahay ma jirto. laakiin dadaalka qofku uu dadaalaya haddii gaabis uu ku yimaado xataa waxay tahay in la bogaadiyo la yiraahdo war meeshaanaad ka gaabisay hore u soco waad fiican tahay. cunugga socodka baranayo haddii uu tallaabada markuu qaado kufaba waa booday haddii la yiraahdo inta qoslo haddana si istaago isku sii daya socodka inuu socdo. laakiin
dabaalka eeg wuu kufaya haddii la yidhaahdo marka dambeeyaan marka labaad dabaalka eeg lagu dhihi intuu iska yidhaahdo meeshiisa fadhinayaaye iskuma dayayo ma soconayo baarlamaanka tirada ku jirta iyo dadka khubarada ee ku jira iyo awoodda uu leeyahay waxaa laga rabaa xukuumadda inuu u sacbiyo yidhaaho waa boodaya hore u soco laakiin waa kuftay meesha ay joogto iyo meesha ay taallo eeg haddii la yidhaahdo isku daygii iyo maxaa rabitaankii ayaa aad iyo aad daawac u garaya ilaa iyo haddana inta baarlamaanka runtii anigu aragtidayda iyo warqabkayga iyo korka eegista howlaha markaan eegaahay hawsha baarlamaanka uu hayay dabeecadda lagu soo arkayay sidaas ayay ahayd waan rajaynaynaa in haddana intiioo laga sii xoog badiyay ay noqoto in oo maxaanku idhahda bajetkeenna uu soo gaaro xilligan xukuumadduna ay shaqayso oo miisaanaddu ay furan tahay waxay ka mid tahay waxyaabaha tilmaamta u ah ee dulqaadka baarlamaanka iyo maxaanku idhahda garab qabashada iyo daadihinta uu xukuumadda wax ka daadihinayay oo garab qabanayay howlaha noo yaallaahi waa mucayan waa la garanayaa howlo cusub oo soo kordha ma jiraan ayaga unbaa mar walba weji cusub qaarkood yeelanayaan qaarkood maxaanku idhahdaaye aan dareemaynaa oo ay shucuurteennuna tusinaysaa inaan waxoogaa meeshii aan rabna aynaan gaarin dalka runtii sanadkii hore lasoo dhaafay aad iyo aad ayaa horumar ballaaran loo sameeyey meeshii aan joognay 2012 markaan xilka qabannay dhammaanteen iyo maanta meesha dalku joogaahay markaan isbarbar dhigno aad iyo aad ayay u kala duwan tahay horumar dheeri ah iyo wanaagna wuu muuqdaa waa la taaban karaa oo la tuuji karaa laakiin dee dalka sidaas ah oo burburka iyo meeshaas gaaray waxa dhiman ayaa aad iyo aad uga badan oo ka baaxad weyn waxa qabsoomay haddana xigmaddu waxay tahay waxa noo qabsoomay haddii aanan aqoonsanin oo aanan ictiraafin oo aanan u bogin oo aanan ku raaxaysanin waxa dhiman inay noo qabsoomaan waxoogaa way nagu dhib badnaanaysaa marka waxaan leeyahay waxa noo qabsoomay aad iyo aad ayay u qurux badan yihiin waanay hagaagsan yihiin dalka waxaa hadda socda xasilintii dalka sidii loo xasilin lahaa dal degan oo siyaasad ahaan degan oo maxaanku idhahda amni ahaan degan oo dhaqaale ahaan degan sidii uu u noqon lahaa ayaa hawsha ugu muhiimsanee hadda gacanta lagu hayaahay ay tahay xasilinta dalka waxaa ugu horeysa dib u hanashada dowladdu inay dib u hanato dalka oo dhan soomaaliya waxa ay caalamka kaga duwan tahay waxay tahay dowladda soomaaliya oo wada jirtaahi dalka soomaaliya dhammaantii buqcad kasta oo ku taallaahay kama taliso barar madow iyo godad boholo mugdi ah ayaa soomaaliya ku dhex yaallo oo keenay duruufaha maanta soomaaliya ay ku sugan tahay ay keentay godadkaasi markay samaysmeenna soomaaliya inay duruufaha ku sii nagaato ayay sababeen maanta marka waxay tahay godadkaasi baabi'intooda iyo tirtiridooda dowladdu inay dalka oo dhan ay hanato oo dalka oo dhan uu dego dadaalkaasi waa lagu jiraa wiilal soomaaliyeed iyo wiilal kale oo maxaanku idhahdaaye afrikaan ah oo soo gurmaday oo nala galaya ayaa maanta u dhiig baxaya oo u dhimanaya marka in annaguna marka wixiina laga rabay oo ayagaas taakulaintooda iyo garab qabashadooda iyo maxaanku idhahdaa dhiirigelintooda iyo qurxintooda ah ayaa nalaga doonaya niyad jab bay ku noqonay markay dhinaca inta eegaan ay arkaan dowladdii xaggeeda ina gaabis u ka jiro wixii la rabay sidii loo rabay aanay uga imaanaynin uga soconin waxoogaa waxay niyad jab ku noqonay wiilka soomaaliyeed ee maanta daleesha u taagan naftiisa inuu u huro u beerdareeyo oo u geeriyoodo u dhinto u dhaawacmo in dalkaani uu noqdo dal la mid ah dalalka caalamka ummadiisuna ay noqoto ummad la mid ah ummadaha caalamka oo caalamku siduu u nool yahay iyo ciziga iyo karaamada uu ku nool yahay inay ku noolaadaan ay tahay xukuumadda iyo baarlamaanka iyo guud ahaan hay-adaha dowladda oo dhan xilka saaran marka wuxuu yahay inaan fududayno inaan qurxinno inaan wixii ka dhiman aan la nimaado muxuu ahaay dadka u taagan naftooda inay huraan oo ay dhiiggooda bixiyaan si maxaanku idhahdaa loo gaaro haddii ay marka xaggeenna ka imaan weydo isqabqabsi iyo faro isku fiiqfiiq isqabqabsi iyo faro isu taagtaag haddii xaggeenna uu ka yimaado ama laga dareemaayo xoogaa waxay niyadjab ku noqonaysaa dadaalkaas faraha badana xukuumaddu barnaamijka xasilinta ay la timiday midka caskariga ah ee milatariga ah ka sokow
midka rayidka ee civilianka oo ay ugu horeyso samaynta maamulada meeshii la xoreeyo dib loo soo celiyo gacanta dawladda lagu soo celiyo gacanta dawladda waxay kula jiri kartaa ama ay ku jiri kartaa oo kaliya meeshaasi markii maamul ka jiro rasmi ah oo dadkii maxaan ku raay u adeegaya maamul samayntuna waa arin wada la maraya arin hal mar ah yani xadath hal mar ama event hal mar dhacayo oo meeshaas ku dhamaada maaha waa processkaasina xukuumaddu wada cad ay u samaysay iyo oo loo maro oo aan isleeyahay waa dadaal dheeri ah oo maxaan ku raahdaa ku habboon inuu halkiisa ka sii socdo waxaan doonaynaa marka in aan maxaan ku raahdaa aan la kaabno oo aan ku garab siino xukuumadda in ay maxaan ku raahdaa hawshaas sida si ugu qurux badan ay u qabsato sida si ugu qurux badan ay u qabsato oo ay howlaheeda u hagaagsato baarlamaankuna arrintaa uu ku taageero magaalada muqdisho wasiirada kabinetka ka tirsan dhammaantood waad aragteen degmooyinkii inay isku qoreen dhex taagan yihiin habeen walba sidii hawsha oo gacanta koowaad iyo aragti koowaad ay ugu hayn lahaayeen oo ay u socon lahayd barnaamijka qorshaha xasilintu marka waa barnaamij labadaas wado isbarbar socota ee isla socotaa ee ku jira oo ah midii howlgallada ciidamada iyo midii maxaan ku raahdaa dhinaca rayidka ah ee maxaan ku raahdaa maamul samaynta waan rajaynaynaa in isla jaan qaadaan oo ay guuleystaan waxaan rabaa fursaddan mar kale inaan ku celiyo nimanka la yidhaahdo shabaab sidaan wada ognahay mushkilo soomaaliya keligeed ma aha waa mushkilo caalami ah shabaabku waa fikirkuna ma laha citizenship iyo muwaadinnimo ma laha fikirku xuduudahu gooyaa qaaradahu gooyaa waxa ay ku wada jiraan meesha ku jiraan waxa kaliya oo Soomaali ay ku noqdeen waxay tahay dalka Soomaaliya inay ka jiraan waxa kaliya oo dalka Soomaaliya ay uga jiraan waxay tahay dalka Soomaaliya inuu baholo badbadow oo lagu dhuunto inuu leeyahay waa asbaabta keentay laakiin shabaab ugama sokeyno fikirkooda caalamka intiisa kale ugama sokeyno dhibaatada ay hayaan caalamka intiisa kale ugama sokeyno dadka ay yihiin waa caalami Soomaali kaliya ma ahan laakiin in ay Soomaaliya tahay meesha godka ah ay ku dhuumanayaan ayaan caalamka intiisa kale duwanahay mar kale waalidka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed gabahanba ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan waa ugu baaqayaa in wiilasha la marin habaabiye dib loo soo celiyo wiilashu waa wiilasheenii dalkani leeyihiin dal kale ma laha waxaan leenahay mustaqbal kama jiro shabaab iyo mabdiisa wiilasha aan ka soo celino ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay soo noqdaan dawladda iyo dawladnimada dhexdeeda dulinimo ma taalo in dadka la karaamo tira ma taalo in dadka si maalayacna loo dilo ma taalo waxa taalo waxay tahay ixtiraam iyo qofka muwaadinka sharafta iyo haybadda Soomaalinimo iyo midda bani aadamnimo uu leeyahay si cad in dawladdu ay mas'uul uga tahay u protect garayso ay u ilaaliso qoraga aakaha iyo qaraxana nolol ma ay mustaqbal ma ahan laakiin dawladdu waxay diyaar u tahay wiilashaas inay dib u habayso xirfado ay ku noolaadaan iyo nolol fiican ay ku noolaadaan iyo shaqo meel ay ka shaqaystaan intaba dawladdu inay abuurto oo ay ka shaqayso ayay tahay marka wiilasheena hala soo celiyo dawladdu ka aarsan mayso waa wiilasheedii waa Soomaali dawladdu ciqaabi mayso laakiin dawladdu waxay u fududaynay in ay ka bedelmaan maskaxdooda iska bedesho wixii ay kor uga hamiyeen oo meesha ay nolosha ka duminayaan oo diinta ay ka duminayaan oo dalkoo dhan ay ka qaribayaan in ay noqdaan kuwii dhisayay dalka dib u dhisayay nolosha dib u habeynayay diintana difaaca u noqonayay oo wadiiqada saxda ay wasaatiyada ugu noqonayay maxaan ku raadayay difaaca marka wiilashu waa sidaas ajaanibtu waxaan leenahay dalkoodii ha aadaan haday dal leeyihiin dalkan dadka la yiraahdo Soomaali oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ayaa iskala madaxda fikirka xabaasan ee shabaab ee madaxtinimada sheeganayo ee Soomaalida ah haddii ay fikirka ka soo noqdaan fursadda wali waa u furan tahay sidee qaabkee goorma xagee waa wax laga wada hadli karo farsan laakiin dalkani qof Soomaali ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo maxaan ku raadayay gooni loo takoorayo ama la neceb yahay ama muxuu ahay qawaaniinta shuruucda dalku leeyahay inay dilku xukunto ma ogiya
dil ugu xukuman dadka Soomaaliyeed midna ma jirto waxaan leenahay idinku lafsidiina fursaddu way idin furan tahay in aad ka soo noqotaan fikirkaas waxa ka soo haray ee farsamo ama khaldanne waa laga doodayaa waa laga hadlayaa waana la iska afgaranayaa ayaan qabnaa siyaasadda dawladdu marka waa xitaa mar walba dhinaca cafiska dhinaca dulqaadka dhinaca soo dhaweynta ay mar walba ay jirtaa ninkii ay galayso ninkii ku qancayo ninkii doonaya waxa Soomaaliya u danta ah umbaana mar walba ah waxa lagu heshiinayo cafisku wuxuu ku saleysnaanayo soo dhaweyntu waxay ku saleysnaanayso mar walba waa qodobka Soomaaliya u danta ah haddii aan si gaar u soo qaado xasilinta magaalada Muqdisho waa magaalo metropolitan ah in ka badan 2 milyan oo qof ay ku nool yihiin waxay leedahay dabeecado magaalooyinka waaweyn ee caalamku ay leeyihiin waa magaalo dambiilayaashu ay ku dhex dhuuman karaan laakiin haddana waa magaalo la sixi karo la hagaaji karo annay ka muuqato hadda sixitaankaasi dadaalka dawladdu ay samaysayna magaalada uu ka muuqda muuqaalka maanta magaalada Muqdisho 22 bisha Maars ay leedahay aad iyo aad ayay kaga duwan tahay 22 bisha Maars sanadkii hore midkii ay lahayd kii ka sii horeeyay way ka sii duwan tahay kii ka sii horeeyay ka sii duwan tahay marka taraakum is tartarid wanaag ah ayaa ka socdo waana rajaynaynaa in wanaagaasi uu aad iyo aad u sii kordho magaalada Muqdisho dabeecado badan oo aanay lahaan jirin oo caasimadaha adduunka ay leeyihiin ay maanta leedahay dabcan mar kale waxaan rabaa inaan ku xiliyo wax badanna waa noo dhiman yihiin wax badan oo aad iyo aad u badanna waa noo dhiman yihiin laakiin waxaasi badani inaan gaarno waxay noo fududaanay waxa aan qabsanayo yar markaan aqoonsano oo aan ku raaxaysano markaasay suurtagal noo noqonaysaa waxa noo dhimanna inaan maxaan ku raadayay aan aqoonsano xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa saaran waajibaad aad iyo aad u cadcad oo iyadu ay cadaysay siyaasad guud iyo muhiimad guud oo dalka ama xukuumaddii ka horeysay ama baarlamaanku uu hore u dejiyay way u yaalaan oo laga doonayo in ay fuliso waxaan leenahay in aad ugu adkaynaynaa ilaa hadda wadada ay ku taagan tahay waa wada sax ah horaha uga socdaano gaabis meeshii gaabis ka jirane baarlamaankuna ha kaabo aniguna madaxweynihii ahaan waan kaabayaa si gaabiskaasi meesha uga baxo ma rajaynayno in aan helno gaabis la'aan waayahan dhow waxaan rabaa xukuumadda waxa ugu weynaa saaran ee baarlamaankuna uu kala shaqayn doono waxay tahay hiigsiga ama vishinka 2016 xilliga uu dhamaanayo mandate-ka dawladda Soomaaliya maanta jirtahay xukuumadda baarlamaanka madaxweynaha intuba ay leeyihiin kaasi wuxuu yahay maalintaas Soomaaliya xageen uga tageynaa maalintaas waa maalin waqtigii naloo xil saarto u dhamaaday dadka Soomaaliyeed intaan u soo noqon aan leenahay waa kana muddadii naloo dhiibay dalka ee mas'uuliyadana la saaray wixii aan qabanna waa kuwa maalinta aan dhahayna waay maalintaas dadka Soomaaliyeed jirta marka haddii inteenaan iyo in kamida iyo dhammaanteen iyo midkeenna inay soo noqday in kale waa talo u taalo laakiin waxaan saaran waxay tahay maalintaas dadka Soomaaliyeed inaan siino fursad ay ku qaabeyn karaan ra'yigooda iyo cidda ay mas'uuliyadda u dhiibanayaan iyo dalka meesha u dhaqaaqay raalli ka yihiin siday u muujinayaan maalinteeda aragtidaas loo bixiyay 2016 saddex qaybood ay ka koobantaa waan wada garanaynaa mid waa constitution dhammaystiran qabya baxsan dadku ay maxaan ku iraahdaa fursad ay ra'yigoodana ku darsadaan inay ogol yihiin iyo meeshay ogol yihiin meeshay ogolayna ay sheegaan loo siiyay oo markaa constitutionkii maxaan ku iraahdaa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo aan provisional kumeel gaar aan ahayn oo meesha uu ka soo baxo midka labaad waxay tahay heshiiskii caamka ah ee ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ay ku heshiisay oo ahayd dalkan inuu dal federaal ah noqdo oo dhaqan galay oo dalkii la dareemayo la leeyahay haa nacam maanta waxaa la dhihi karaa dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa dal federaal ah way muuqataa federationkii waa ka xubnihii dowladdaas federaalka ee Soomaaliya la yiraahdo unitiska muxuu ahaa ka ahaa xubnahana
waa kuwaasaa la dhihi karo inaan soo gaarsiino ayaa ayadana nalaga rabaa. waxaana laga rabaa meesha dambe ee loo hana qaadayo dadku sida ay madaxda ku dooranayaan, nooca doorashada, qawaaniinta hagaysa doorashada, codka gabadha Soomaaliyeed ay bixiso sida loo turjumayo oo micno loogu yeelayo warqadda qalinka lagu xariiqay micnaha ay leedahay sida maxaan ku iraahday loo turjumayo oo loo cadeynayo oo loo soo saarayo. waxaana laga doonayaa ee maanta noo yaalahay ee hiigsigaas uu tilmaamayo oo qaybta saddexaad ah waa midaas. saddexdaas qaybood oo si wada jir ah u socda, xukuumadda iyo baarlamaanku haddii ay u wada istaagaan kaashadaana shacabkooda, waxaan isleeyahay dalka meel baan soo gaarsin. taas macnaheedu maaha 100% Soomaaliyadii aan rabnay weli inaan hayno maaha, laakiin wadadii oo aan cadeyno tilmaanay oo la qaaday waay. waxaan rajaynaynaa in arrimaha waxaa la xiriira oo in badan oo kamida ay yihiin dejinta shuruucdii waxaas ay ku socon lahaayeen, structureski iyo maxaan ku rahaa qaab dhismeedyadii waxaa dhaqan geli lahaa oo qaar badan oo kamid ah ay naga maqan yihiin oo qaarkaasi la rabo inay xukuumadda iyo baarlamaanku ay wada sameeyaan. wixii doorka xukuumadda leedahay ay qaadato, doorka baarlamaanku uu leeyahay qaato, si hay'ad sharci ah oo shaqadii noo qabato lagu kalsoon yahay loo dhiibo. wax badan marka waxay ku xiran yihiin mar labaad waa wada shaqaynta xukuumadda iyo baarlamaanka oo aan aad iyo aad ugu kalsoonahay inay aad iyo aad u hagaagsanaan doonto, horkici doonto. waxaan codsanayo oon ugu baaqayaana baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxay tahay aragtideena mar walba inaan kor u qaadno, aragtideena mar walba waxa waaweyn ee na sugaya inaan aragno, aragtideena mar walba inaan dulqaad ka muujino meelaha gaabiska aan ka nahay, meelaha aan gaabiska ka nahayna inaan tala iska siino, faraha iskula fiiqno, qabashadeeda isfarno, iskula xisaabtanno. waa sax, laakiin mar walba inaanay naga hor istaagin wixii weynaa oon qabanayn. waa kala ra'yi duwanaanaynaa, waa kala aragti duwanaanaynaa, waa kala maxaan ku ihahdaa rabitaan duwanaanaynaa. nolosha sunnadeeday ka mid tahay. waxaasi waa inaanay caqabad nooga noqonin, nagana hor istaagin mudanayaasha maxaan ku ihahdaa sharafta leh ee waxa weyn ee aan hiigsanayno ee ah 2016 dalkan meeshii aan ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadnay inaan gaarsiinayno in aanay caqabad nooga noqonin oo aanay dib u dhaq nooga waxaynin. amuuraha ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka iyo maxaan ku iraahdaa dib u eegista ama arrimaha federalismka iyo xuduudaha iyo qaabayntooda. dastuurka hadda aan haysanaana wuu qeexayaa, wuu qorayaa wax badan oo kamid ah iyo siday u qabsoomayaan, laakiin gacmihii wax noo qaban lahaa ayaa in badan naga maqan yihiin. aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinayaa, uguna bogaadinayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba hay-adaha dastuurka tilmaamaya ee naga dhiman, eena fududaynaya ama suurto gelinaya 2016 hiigsiga aan rabnaay inaan gaarno, in muhiimadda koowaad laga dhigo oo la dhaqangelintooda iyo maxaa dhaqaajintooda in maxaan ku ihahdaa aad iyo aad loo dhaqangeliyo. dowladnimadeenna qaabkii aan isu matalaynay, qaabkii aan wax xulanaynay, inaan meeshii hore ka nimaado oo maalin walba aan samayno ayay ka mid tahay. xukuumadda waxaan ku bogaadinayaa tallaabooyin cadcad oo la taaban karo oo ay dhinaca runtii u qaaday. waxaan leeyahay waa arrin bogaadinteeda mudan. waxaasi oo dowlad dhisidda cilaaqaadka la leh waxaa ka mid ah مثال dalkeennu dhaqan dowladnimaan soo lahayn oo muddo soo jiray. dhaqankii dowladnimada waxaa ku dhacay inqidaac ama kala go-a ku dhacay intii muddo ah. muddadaasi wax badanaa oo dhismi lahaay oo samaysmi lahaay oo maanta aan wax ku qabsan lahayn ayaa meesha ka baxay. inaan soo kabno marka looga baahan yahay. marka meelo badani nama daaweynayso xalkii markii dawladdu ay dhisan tahay socoto oo maxaan ku rahaa wax walba u hagaagsan yihiin mushkiladaha qaarkood lagu xallin jiray oo haddana meesha nama daaweynayso. matalan xukuumadda waxaan ku hambaliyeynayaa arrinta ku saabsan xisaabiyaha guud iyo hanti dhowraha guud iyo sida ay usoo samaysay. yacni caadiyan waxaa dhaqan dowladnimadeedna u soo ahiray arrimahaas inay noqdaan arrimo oo career development ku yimid oo
qof xisaabaadka guud ama hanti dhowraha guud xafiiskiisa inta ku soo biiray muddo ku soo waxbartay ku soo waaya aragnimo qaatay ku soo dhismay waxbarasho kale ku sii helay qudradiisa awoodiisa ku dhisantay marka dambe inuu noqdo maxaan ku yiraahdaa hanti dhowrihii guud ama xisaabihii guud madaxweynuhuna uu muxuu ahaay uu magacaabo xukuumadduna madaxweynuhuna uu magacaabo ma ayan dhicin jiilkii horena waa koreen oo waa weynaadeen jiilkii dambena fursad ay ku soo koraan ay xirfadii iyo waayo aragnimadii ku soo kasbadaan ma ayan helin marka in qof la iska magacaabo madaxweynuhu qof saxiixo xukuumadda qof soo barboos garayso la yeelaahay macnaheedu weli ma tilmaamayo in wadiiqadii aan ku guulaysanin inay tahay marka taasi marka waxay keentay in hal yiraahdo war hal advertise gareeyo oo hal loo tartamo oo aan jirino bal yaa ugu dhow oo shaqada noo qaban kara hay'ado caalami aan xukuumaddu la kaashatay tartanaa la galay ragaa la soo barboos gareeyey intii haddana xukuumaddu inta hor fadhiisatay dib haddana usii interview garaysay qaaray ka soo bixisay sidaasaan maanta waxaan ku leenahay xisaabiye guud iyo hanti dhowro guud waxaan rajaynayaa laba qof oo kalsooni badan qabto oo isku kalsoon awoodooda aqooneed ku kalsoon oo aan ku kalsoonayn wallaahi hebelaa ku keenay madaxweynaha ku keenay madaxweynuhu wuxuu yiraa waa inaad dhegaysataa maya wasiirkaa ku keenay wasiirku wuxuu yiraa waa inaad dhegaysataa maya xildhibaanadaadaa kuu ololeeyo reerka muxuu ahayaa lagu wero marka waa inaad dhegaysataa waxa ay rabaan aan ahayn oo dareemayo xorriyad iyo in uu qawaaniinta sida ay qabto uu ku adkaysto haddii uu lagu diidana inuu awood u leeyahay biri iskaba tegi karaba qof sidaas inaan helnahay runtii wax weyn ay ahayd tallaabooyinkaas marka waa ku bogaadinaya waxaan sidoo kale ku hambalyeynaya dhaqankaas xukuumadda ka horreeyo soo bilaabay baarlamaanka oo mas'uuliyadda baarlamaanka ee xagga maamulka in loo tartamo imtixaan loo galo yaa Soomaali ah oo shaqadan qaba kara la yiraaho waxay ka soo bilaabatay maamulka baarlamaanka iyo guddoonka go'aanadiisa waa lagu guuleystay dad Soomaaliyeed oo kala duwan oo xirfad iyo aqoon lahaa yimiday kuwii joogana way ku qanceen in meesha sidaa lagu yimid ku daysiga xukuumadda ay ku daysatay oo ayadana tallaabadaas hore ay bilowdeen waa hambalyeynayna kuwa kalena in sidoo kale loo dhaqaajiyo waan rajaynaynaa oo maxaan ku raadin reer kastoo Soomaaliyeed dad wax yaqaano leeyahay reer aan dad wax yaqaano oo qualified aan lahayn ma jiro laakiin ha loo tartamo ha la waxeeyo meelaha qaarkood ismathalaadda siyaasadda waa reereynay waan ku keennay waan masaalixdii iyo danihii iyo kalsoonidii reerkana waa ku salaynay oo baarlamaankeenna ku salaysan oo xukuumadeenna ku salaysan laakiin xirfaduhu nooguma saloobi karaan bal aan isku dayno inaan tilaabadii ugu horreyso dhinacaas qaadayno marka waa inta xukuumadda sidoo kale iyo baarlamaanka intaba waxaan ayaguna rabaa inaan ku bogaadiyo gaaristii ay dadka gaareen xildhibaanadu inay safraan oo gobollada qaarkood ay tagaan oo xukuumaddu ay safarto oo gobollada qaarkeed ay tagto waxay ahayd arrin ayadana runtii aad iyo aad ididiilo cusub iyo dhiirigelin u leh oo lagu farxo waan hambalyeynayaa maamulada dalka ka jiraay ee kumeelgaarka ah in badan oo ka mid ah in iyagaa lafsadooda ayagaa jireen maanta la xoojiyo oo ay dadka iyo gobollada ay ka yimaadeen loo yeero oo talooyinka qaarkood ee national levelka ee heer qaran ah ay soo fariistaan waxay ahayday arrin xukuumaddu ay samaysay oo lagu farxo arrinta new dealka shirarkii laga qabtay steering committee haddii ay tahay iyo qolada high levelka ah steering committee oo ra'iisul wasaaruhu uu gudoominayay iyo kuwa high levelka anu gudoominayay intaba waxaan aad iyo aad la isugu dayay in gobolladu ay ka soo qayb galaan oo ay dhageystaan oo ay ra'yigooda ka dhiibtaan arrinta ku saabsan dib u dhiska dalka iyo kaalmada caalamiga ah iyo sida ay u qaabaysan tahay fursad fiican ay ahayd runtii in maamulada gobollada qaarkood markii ay dhageysteen warbixintii xukuumadda iyo dowladda iyo sida ay waxyihiin qaarkood inay yiraahdeen aad iyo aadaan ugu faraxsannahay wax badanoon ba annagu aan ku tuhumsanayn in dowladda Soomaaliya iyo gaar ahaan xukuumadda iyo wasaaraduhu inay haystaan oo caalamkiiba wixii dhaqaale jiro ayaga uu noogu dhiibay maanta in halkan xisaabtan cad laga sameeyay
oo wixii dalka soo gaaray wixii kale la kala cadeeyay aad ayaan ugu faraxsanahay xukuumaddana waa ka qanacsanahay inay dhahayn waxay ahayd arrin aad iyo aad muxuu ahay ididiiro u loo daawana haddii aan marka si kooban aan u dul maro arrinta ku saabsan new dealka waa barnaamij caalami ah oo adduunyadoo dhanba dalalka dagaalada sokeeye ka soo baxay oo dhanba loo sameeyo dib u dhis iyo horumarin ayuu ku salaysan yahay humanitarian ma aha emergencies ma aha dib u dhis iyo maxaanku idhaahdaye horumarinta ayuu ku saabsan yahay dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa soomaaliya lagu siiyey arrintaas oo loo ballanqaaday ballanqaadka iyo waxa yimaadaha mar walba waa kala duwan yihiin waa la yiraa laakiin wixii yimaadaha yaa reerka ku filan laakiin waxaan rabaa in aan baarlamaanka u sheego ilaa iyo hadda sidii aan rabnay ma aha sidii aan rabnay wuxuu inay ahaadaan ma aha waqtigii aan rabnay wuxuu inay dhacaanna ma dhicin shirki ugu dambeeyo high levelka ah oo anigu aan jeergaraynayna waa la wadaagay beesha caalamka iyo dadkii matalay waxa la rabaa waxay tahay beesadii Soomaaliya loo ballan qaaday goormay Soomaaliya inta timaado ay isu bedelaysa adeeg mujtamacu leeyahay beesadii Soomaaliya loo ballan qaaday goormay isu bedelaysa iskuul iyo isbitaal iyo wado iyo maxaan ku raadaay habka waraabka beeraha iyo ceel iyo xoolihii oo la daaweynayo iyo badii oo maxaan goormay isu bedelaysaa oo waxaas oo dhulka ka qabsooma goormay noqonaysaa waayo wax asalka ah oo muhiimka ah beesa la ballan qaaday tiradu waa badan tahay numberku waa badan yahay naguma filna meesha aan marka aan weli dadaalka iyo maxaan ku iraadaay wada hadalka iyo ay ka socdaan waa meeshaas gaabis badan aan ka tirsanaynaa meeshaas inuu ka jiro dabcan maalin dhaweeto caalamka waa u sheegnay mana ka qarinin dalkan Soomaaliya la yiraa muddadaas muxuu ahay soo burbursanaa colaad sokeeye iyo dagaal sokeeye ka soo baxaya hay-adihiisa dowladnimadu qaarna ma jiraan qaarna waa soo korayaan oo hadday dhasheen cudurdaar ma aha marka dowladdu awood ma laha iyo hay-adihii ma jiraan iyo kan ma jiro haddii dalku hay-ada leeyahay oo nidaamkiisu toosan yahay new deal ba maanaga u baahan lahaynba baahida new deal ba meesha ma imaan lahayn baahida new deal iyo concept iyo fikirka waxay ku timid dalkan inuu burbur ka soo baxay oo dib u kabasho iyo dib u soo dhis uu ku jiro wixiisu ay kala dhiman yihiin oo ay kala maqan yihiin oo tabardarri ay jirto xigmadda new dealka keentaba intaasay ahayd waxaanan rajaynaynay in maxaan ku iraahdaa caalamka asigoo sidaa og oo maxaan ku iraahdaa Soomaaliya garab istaago marka cudurdaarada qaarkood oo caalamka uu qabo oo hay-adaha Soomaaliya weli ma xoog badna ma dhisna kan ma aha la leeyahay lama qabno maalin dhaweeto waa u qeexnay waxaan dhahnay war dhaqaalaha adduunka Soomaaliya uu talagalay Soomaaliya hal la keen oo nidaamka dawladnimada hal la soo marsiyo idinkuna imaada ee wax ka ogaada meesha uu ku baxay iyo sida uu u baxay iyo sida uu yahay wax ka ogaada oo maxaan ku iraahdaa wax ka maamula hadii aad doontaan kuma xirna in maxaan ku iraahdaa lacagta noo dhiiba iska tag idmadeen waan rajaynaynaa adduunyada inay garaawsato in arintaasi maxaan ku iraahdaa ay wax ka bedesho ay wax ka qabato markaan u soo noqdo marka annaga doorka aan leenahay dadaalkeena inta aan qaban karno maanta shacabka Soomaaliyeed oo baarlamaanka federaalka wakiilka waxaan rabaa inaan u sheego wax badan oo dalkan ka qabsoomay waxay ku qabsoomeen waxa yarkaa oo annagu aan leenahay yay ku qabsoomeen wiilka Soomaaliyeed ee qoriga sita ee dagaalamayahay $100 uu qaato waa midka ay bixiyaan dadka taxpayerska Soomaalida cashuurta laga qaado ha yaraato garaamka raashinka uu cunayo waa sidaas hubka maanta uu ku dagaalamayahay dhammaantiis waa hub Soomaaliyeed ama muxuu ahaay dad Soomaaliyeed oo lahaa dawladda ku wareejiyeen hasiye ama dawladda soo iibiso lacagta yarta dhaqaalaha yarka ay dadka ka aruurisa ku soo iibiso intii baan rajaynaynaa in ay wax badan noo qabato waana noo qabatay waan u sheegnay caalamkana inaan mudannahay in maxaan ku iraahdaa cuna qabataynta waana laga qaado hubka laakiin waxaan looga qaaday inaan waxeena wax ku soo iibsano wixii aan wax ku soo iibsan karnaa intii la egyihiin waan garan karnaa marka dadaalkeenu iyo dadaalka xukuumadda iyo dawladda guud ahaan ay sameysay dhinacaas sidaas uu ku wajan yahay uuna socdaa mar kale sidii gudoomiyuhu uu sheegay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo
dadkii maxaanku irahdaa naga geeriyooday ee ayagoo dalka u dagaalamayo ee maxaanku irahdaa magaca iyo maqaamka iyo mujtamacan horumarintiisa ku dagaalamayo u geeriyooday waxaan u tacsiyeynayaa waxaan ilaahay uga baryaynaa dhammaanteenba in samri iimaanna uu naga siiyo ayaguna jannadii uu ka waraabiyo sidoo kale waxaan u tacsiyeynaynaa ciidamada amisom ilaa hadda dadka uga dhintay gaar ahaan nimanka la yiraahdo heel walaal ee sektarka afraad ee amisom jooga iyo dhibaatadii ama dhimashadii ka dhacday Buulaburte oo aan runtii leenahay adinkana wax weyn oo abaal ah ayaad ummadda horena ugu lahaydeen maantana aad dib u gashateen oo maxaanku irahdaa waxaynaya wasiirada iyo xildhibaanada guud ahaan ayagana waxaan ku bogaadinayaa in ay sii wadaan gaarista ay gaarayaan dadka ha ku gaareeno inay u tagaan ay booqdaan ha ku gaareeno inay taleefon kala hadlaan ha ku gaareeno maxaanku irahdaa si kaste dadka meel kastuu au joogo inay gaaraan oo ay la fariistaan oo noloshooda iyo waxa ay ku sugan yihiin ay arkaan si xukuumadda halkeeda muxuu ahay mashaariicdeeda iyo barnaamijyadeeda loogu wajaho shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo guud ahaan inuu xoojiyo midnimadiisa inuu xoojiyo dadaalka dawladdu ay ku jirto inuu garab istaago oo kabo yaan la kala habaabin yaan la kala dhumin wadadu way caddahay dalka aan xasilino dawladda aan dhisano dawladda leeyahay aan wada helno waxa aan rabnaa hal subax ma wada gaarayne maalin walba meelaan u hoyanaynaa galab walbana meelaan u sii hergelaynaa aan ku qanacno intaas oo aan daba taagnaano mar kale iyo mar kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo shaqada aad qabateenna waa qurxoon tahay midda idin dhibanna way ballaaran tahay sanadka 2014 waa sanadka wax qabadka ballantii aan qaadnay oo 2016 dalka inaan gaarsiino aan ka dhabayno sida kaliya aan uga dhabayn karnana waxay tahay wada jir waa isdhaliili karnaa waa kala ra'yi duwanaan karnaa laakiin mar kale aan rabaa inaan ku celiyo taasi yaanay caqabad ku noqonin hor socodkii wax la qaban lahaa in la qaban waayo laga mashquulo yaanay sabab u noqonin aan hore u soconno aan sii muxuu ahaay hadaafno waan gaaraynaa laakiin maanta jihadii saxda ahayd ayaan u jeesanay oo aan u soconnaa shakina dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed uma jiro dalka labadii hadaf ee weligeed aan tilmaami jirnay ayaan leenahay ayagii ayaan xoojinaynaa waa inaan aragna Soomaaliya mid ah oo midaysan waa inaan aragnaa Soomaaliya oo deganaanshiyo amni mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale leh hiigsiga 2016 wuxuu asal u yahay deganaanshiyo dhaqaale iyo deganaanshiyo siyaasadeed iyo deganaanshiyo amni dalku inuu yeesho ayuu aasaaskiisaba oo ku salaysan yahay aan ka wada shaqeyno aan isla wada garab qabanno aanan muxuu ahay hiigsigaas ka dhabayn haddii aan leeyahay aad iyo aad ayaan mar kale idinku mahad celinayaa idinku bogaadinayaa idinku hambalyeynaya ballanteenu waxay tahay sanadka 2014 sanadkii Soomaaliya ay caga dhigaysay inuu noqdo ilaahay idinkiisa sanadkii Soomaaliya laga waynayay khilaafka sanadkii Soomaaliya laga waynayay maxaan ku raacay isqabqabsiga sanadkii Soomaaliya ay ka yaraanaysay wixii waxyaabo badan oo hore loogu aqoon jiray inuu noqdaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeedna nabad iyo deganaansho iyo nolol wanaagsan ay ku naaloodaan fadhiga afraad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waa furan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo si rasmi ah u furay kalfadhiga afraad ee golaha shacabka jamhuuriyaddeena ayuu ahaa khudbadiisii guud ahaan daawadayaal barnaamij gaarka ah ku saabsanaa munaasabadda furitaanka kalfadhiga afraad ee golaha shacabka inta ayaan ku soo gabagabeynaa intaan barnaamij kale mid ku kulmi doono dhamaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo